waxaan soo gaarnay xadiidkeena kuwii soddonaad aan soo gaarnay can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu dhahay calayka warniyow laasim ee dushaad ha ahaato bisamci maqlid iyo wataacati iyo yeelid dushaad ha ahaato inaad waxna maqashid waxna yeeshid fii cusrika culeyskaada dhexdiisa iyo wa yusrika iyo fudeedkaada dhexdiisa wa manshatika iyo firfircoonidaada dhexdeeda markaad faraxsan tahay wey wa makrahika iyo markaad nacaysaba dushaada ha ahaato maqlid iyo yeelid wa atharatin iyo siismo caleyka dushaada laga siiyey yacni waxaad xaq u leedahay qof kale la siiyey. nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahay wuxuuna ka hadlayaa qofka amiirka ah ama qofka madaxda ah muslimiinta madaxdooda ah in warkiisa la yeelo la dhegeysto wey. nabiga caleyhi salaatu wasalaam abu hureyra wuxuu u dardaarmay wuxuu leeyahay abu hureyrow war dushaada ha ahaato laasim inaad wax maqashid waxna yeeshid. haddii wax lagu amro kuuda maqal, marka labaadna yeel oo warka hadiidin. fii cusrika wa yusrika fudeedkaada iyo culeyskaadaba markaad aad dhibsinayso ama culeys ay kugu tahay haddii wax lagu amro warka yeel, hadday fudeed tahayna warka yeel. wa manshatika iyo makrahika markaad faraxsan tahay waxaan lagu amray aad ku faraxsan tahay aada u firfircoon tahay warka yeel oo qaado. haddaad nacayso waxaan lagu amray ama dhib ay kugu tahayna amiirka warkiisa yeel ama qofka madaxda uu ku amray warkiisa yeeloo qaado wey. iyo wa atharatin caleyka iyo siismo waxaad xaq u leedahay qofka la siiyey. waxaa laga yaaba mararka qaar shay baad xaq u leedahay ama adigaa mudan in qof kale lagaa siiyo, qofka madaxda waxaa laga yaaba qof kale inuu siiyo, markaasoo kale waxaa la doonayaa inaad sabirtid iska dhaaftid oo warkiisa yeeshid wey. intaasna waxaa la diidaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu diidayaa qofka madaxda ah in lagu caasiyo, laga hor imaado, warkiisa la diido ayuu diidaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam. waayo qofka hogaamiyaha ah haddii warkiisa la yeelo maslaxad badan ayaa ku jirto, ummadda dhan ayaa maslaxad ku qabto. adi keliga haddii wax lagu gaarsiiyey ummadda dartooda inaad u sabirtaa la doonay aad u dulqaadatid. marka nabiga caleyhi salaatu wasalaam sidaas ayuu u dardaarmay abu hureyra.